bismillaahi raxmaani raxiim kulan haboon daawadayaal ku soo dhawaada qubanaha xaqiiqda wararka caalamka iyo Soomaaliya qaybtan waa degdeg saaxiibayaal afur wanaagsan markuu ugu horeysa madaxweynaha maamulka Somaliland waxa uu maanta magacaabay qaybo ka mid ah golihiisa wasiirada laakiin waxa ka soo dhax muuqday oo waliba isku soo aaday imaanshaha madaxweynaha Israa'iil ee Ethiopia iyo waliba sidoo kale safiirka Somaliland waqtigan loogu magacaabay in ay markaasi ku yeelato danjiro buuxa ee dalkaasi Israa'iil haddaba maxay tahay sababta keentay waqtigan Israa'iil miyay aqbashay doonista Somaliland se talaabada waqtigan ay u qaadayso ma tahay mid markaasi iyaduna ay dhankeeda ay ku horumarin doonto yoolkeeda siyaasadeed ee waqtigan joodo iyadoo aan ognahay in dawladda federaalka Soomaaliya dadaal badan ay u gashay sidii gebi ahaan bay ugu hortagi lahayd qaybtan ayaan rabnaa inaan ku qaadal dhigno soo dhawaada saaxiibayaal markuu ugu horeyso waxaan idinka dalbanaynaa channelka noo cimaamado subscribe ta noo saara like saaxiibada hore nool joogo hay naga hakranina mar kale ayaan idinka codsanayna maasanidin soo dhawaad madaxweynaha maamulka Somaliland Cabdiraxmaan Cirro waxa uu magacaabay safiir cusub oo markaasi ama danjire absaad u taqaano oo si weyn markaasi uga howlgali doono deegaanada Israa'iil iyadoo dhawaana la filayo in madaxweynaha maamulka Somaliland uu gaari doono qaybo ka mid ah Israa'iil inkastoo la isweydiinayo su'aasha ku maldahan ama la xiriirta sababta keentay waqtigan in Cabdiraxmaan Cirro magacaabista waqtigan golaha wasiirada iyo waliba sidoo kale imaanshaha madaxweynaha Israa'iil Ethiopia maanta uu soo gaaray iyadoo waliba xogaha kale la helaya ay sheegayaan in markaasi wufuud ka tirsan qaybta Somaliland ah iyagu qudhooda maanta ay gaareen Addis Ababa halkaas oo ay kala qayb noqdeen kulamada soo dhaweynta loogu sameeyay isaga iyo waliba sidoo kale wafdigiisa mana jirto wax cad laakiin waxa si weyn loo warinayaa in gebi ahaanba markaasi ay gaari doonaan Israa'iil iyo waliba yoolkeeda ku aadan Somaliland waqtigan waxa la tilmaamayaa in talaabada loo qaaday ay tahay mid markaasi looga hormarinayo Somaliland yoolkeeda siyaasadeed way cadeysay markan oo wali waxa uu si talaabaysa Israa'iil xulufaysigooda ka dhanka iyadoo dawladda federaalka Soomaaliya in muddo ay ku bixinaysay waqti badan laakiin talaabada loo qaaday waqtigan ayaana la tilmaamayaa inay tahay mid saameyn xooggan ay ku yeelan karto mar kale haddii aanan markaasi laga hortagin Somaliland wali ma yara go'aankeeda oo waliba cirkaas ay isku sii haysaa sidii markaasi ay ugu noqon lahayd dawlad ka madax banaan dawladda federaalka Soomaaliya inkastoo danjirahan buuxa markan si weyn uga howlgali doono deegaanadaas Israa'iil iyo waliba sidoo kale xaaladda siyaasadeed ee labada dhinac ay ka kala dhaxayn doonaan waxa muuqata waqtigan in markaasi xiriirka Somaliland iyo Israa'iil uu aad u sii xoogeysanayo haddaba maxay tahay sababta keentay waqtigan in Somaliland iyo waliba sidoo kale xiriirka Israa'iil mar kale dib u soo laba kacleynayo iyadoo dawladda federaalka Soomaaliya ay ka aamusantay qodob intaas aan ku soo gabagabeynay qubanaha degdega saaxiibal noolay grade subscribe saaxiib far badan inuu tusaysaa meel dheer noo gaarsiin mahasanidiin wixii warar degdegana si aan idin kula wadaagno